oo dawli ah oo macno leh aanu haysano waxna wax baan karaa ma jirto waana la qashqashaadayaa waana la handadayaa waa idin sheegayaa xalay text message-ka markaanu soo dirnay inaan DP World galayno waxa weeye dagaalka nagu socda ay waa batay markhaatiga ka wadatiin xawar dhan waa ogta ma garat ya jawaari hal ridaa bilaabatay ma garat maxaa loo ridayaa iyo wax ka hadlay ma garat ya waxa weeye waxaas looma dul qaadanayo cidaan ka yeelinaa ma jirto wallahi haddii 200 xildhibaan oo qaayma wadan ah ay wax sameeyaan inaan laga yeelin xabsiga la geenaya ma garat ma laga akhrisanayo qofkii raba inuu wax toosin sameeyo waa la toosinayaa systemkana dimuqraadi ah markaanu yara hadallo yaan la moodin inaan wax duminayno ma garat ya ma la duminayo haddii ay xukuumadda is ilaalinayso iyo haddii dhaqaale la ilaalinayo iyo haddii wixii la xadxadi jiray ya ay yaraadaan waxa weeye waa korjoogtaynta lagu hayo wey ma garat ya xukuumadda waxbaa la farayaa waxaa la leeyahay shaqadaas walaalayaal ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay qabtaa la leeyahay waqti waa la siinayaa waa loo yeerayaa waxbaa la weydiinayaa ma garat kii shaqadiisa qabsan waaya mid oo waxa weeye walaalkiis oo shaqadii qabtaa la keenaya wax dhib oo dhacaya ma jirto annaga gudaheedna waxaan wada leenahay macal khilaafaadka yaga ya iyo ciddi khilaafaadkaas xalin lahayd iyo waxa yaga annaga iskale dalka yaga annaga iskale ma garat waa is haystaan dalalka caalamka dhan waa is wada haystaan ma garat wax dekadahooda faganaya lama arko wax macluuntooda guranaya ma jirto ma garat ya Kenya isku haysata siyaasadda waxa weeye dekadeed hawla fatanaya maqasheen ma garat waa is qabsan karaynaa anagu ma garat ya inta oo la soo haystana waa ogeydeen laakiinse arrinkan waana taabtay ma garat ya waxbaan is weydiin doonaa kalfadhigan hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan is weydiin doonaa why Soomaaliya ergey gaar oo iigada loogu soo magacaabaa Djibouti looga magacaabo Kenya looga magacaabo ma garat ya why ergey gaar oo wakiilka hebel oo UN-ka u fadhiya oo meeshan u xukuma ma sabab wala nooc waqtiga waxay gudoomiye adoo mahadsan hadallo badan oo qurux badan aad jeedinaysay arrinta ku saabsan dalalka ku lugta leh arrintan oo imaaraadka laga xusay oo Ethiopia oo iyadana shareholder lagu tilmaamay markii heshiiskan la galay laga xusay oo xataa maamulka Somaliland oo isagu daraf ka ah heshiiskan isaga maanta aad la sheegay ku tilmaanteen inaan waxba kama jiraanka fariinta aad u diraysid maxay tahay waxa weeye waxaan u diraynaa Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye waa dad awood leh wey ma garat hadday ciidan noqoto dal 3 milyan oo dableeyay miyaa jira ma garat wallahi adduunka lagu arag anaga ugu xoog badan ma garat ummad baan nahay midaysan dawlad la'aan baan jiri karnaa dawlad la'aan ma jiri kartaan ma garat waxaan rabnaa inaad si ixtiraam leh oo waxa weeye sharaf leh aad noola macaamishaan daris wanaag baan u baahannahay inaan kala ganacsanaan u baahannahay inaan iska hashanaan u baahannahay annagu sideedaba dhib ma horseedi karno sababtoo annagaa dhib soo arag kuwa aan dhib arag waxa weeyaan inay ayagu ku dambaysaa dhici karta ma garat ya waxa weeyaan ha la iska hashado ha la is xurmeeyo system dawli ah ayaa dalkan ka jira ma u dul qaadanayno wixii horey loogu soo dul qaadan jiray shacabkayada iyo culmadayada iyo xukuumadayada iyo dowlad goboleedyada waxaan rabnaa inaanu u midowno in aanu ka baxno qaabkii aanu u noolayn qaabkaasi qaab gobonimo ah ma aha aad iyo aad u maasan tahay Sheekh Cali Maxamuud Sheekh Cali Wajiis ugu dambeyntii maxaad ku soo gabagabeynaysaa waa maxay fariintaada ku wajahan dadka iyo dawladda labadaba iyo xataa dalalka arrintan ku lugta leh marka hore gudoomiye waxaan ku raacsanahay qaybihii bulshada oo dhan oo sheegay insha Allah anagu culimada ugu horeyn doono in meel kasta ay joogaan in la taageero qaraarkan taariikhiga ah dabagalna lagu sameeyo cid walba iyo hadda kadib go'aanada noocan oo kale u taagnaata difaaceeda waa ku bilaabaya qodobka labaadna waxaan ku raacsanahay asagoo taabtay baarlamaanka asagoo guddoonkiisa kamid ah in marxaladda soo socota waa la isdhaliili karaa waa la hadli karaa in la saxo laakiin mooshinno iyo isqabqabsi iyo waxdimiyow inaan waqti u hayn taasna gudoomiyaha waa ku taageersanahay annaguna culimo ahaan iyo qaybaha bulshada oo aad isugu xirannahayna ishaan ku haynaa mawduucaas waxaan jecelnahay walaalayaalow marxaladdan iyada ah annagaaba dad badan oo kaleetana laclac nagu hayaan inaan anagu islaclaacin oo aan horu soconno
oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo baarlamaan isku duuban oo marxaladda soo socota wada shaqeeya dalkaana boqolaal shay oo weli la taabanaa jiro horumarka siyaasadda iyo amnigii iyo dhaqaalihii iyo cilaaqaadka dawliga ay wax badan baa qabya ka ah in hor loo dhaqaalaan rabna qodobka saddexaad waxaa weeye oo aan uga noqonaya waxaa jira wax la yidhaahdo التخلية قبل التحلية هدي بديل واحد جرا بديل حسن هاجرة سوماليلاند ولا سوماليلاند وهذا هذا الكود هرت إلا السعودية وصل الله باقي القدوميين وقعوا يجيست أنا أقول علاقات في عنه اللي هي هنا عن سوماليلاند دولة اللي سوماليلاند وأوصل لسوق كمية هاي حنا لحظة حنا أوصل لسوق كمية هاي وحان سوق جدنا يا إن وهذا الكاس اللي تجيه oo aysan abuurin shirkadaas DP World aysan abuurin in dib ay u noqoto rajadii wada hadalka waxa kale oo aan dawladda dhexe madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha iyo kulligood aan ka rabnaa in ay Somaliland DP World hadii meesha ka baxday in shirkado kale oo caalami ah oo dhaqaalihiisa laga heli lahaa iyo horumarkii sameynaya ka waaweyn wax ka weyn sameynaya in gacan laga geysto in loo keeno iyadoo xataa lagu xiray wada hadalka inuu dhammaystirmin macnaha waa in la abuuraa mashaariic kale oo badiilo waaweyn waxaan ogahay boqolkiiba boqol in la helayo dawlad badan oo kasii waaweyn imaaraadkan dhaqaalo badan gaar yihiin dawladda dhexna cilaaqaad fiican leedahay qodobka kaleeto ugu dambeeya waxaa waaye maanta wixii ka dambeeya waxaan rabnaa baarlamaanku inuu ilaaliyo sida hadda guddoomiyaha u sheegay in istiraatiijiyada hantida qaranka iyo waxaan ku yidhaha maalgashiga caalamiga ah in dardar la geliyo dhammaanna soomaaliya xeebta ugu dheer aan leenahay adduunka dawladaha dariskuna waa noo wada baahan yihiin siba Ethiopia waxaan u baahannahay marka Ethiopia dawladda inta isbedelo ay ka socdaan oo aan isu wada baahannahay inaan istaageerno waa in dekadaha waaweyn ee soo socda laga soo bilaabo berbera ilaa Kismaayo mustaqbalka in dawladda dhexe istiraatiijiya ay u dejiso caan ah oo dhammaan yani waxaan ognahay airportka Hargeysa iyo jaamacadda Maakhir iyo airportka Boosaaso iyo airportada waaweyn dawladda dhexe ayaa sabab ka waxay marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in maanta wax ka dambeeya ayn saahir aan leenahay in soo jeedo inaan hore u socono dawladnimada hore u wadno wax kastoo khilaaf ama dhaawac ama isqabsina la ka ilaaliyo maamul goboleedyadana sida hadda dawladda isku duuban yihiin loogu dabacsanaado dekadahana dawladda dhexe ay u dhisto iyo dawladda iyo mashaariic ay keentee iyagu qaraabka ay wadaan maamul goboleedyadu ee dibadda ay ordayaan iska joojiyaano ayagu amniga ka shaqeynaya horumarka laakiin dawladda dhexe mashaariic istiraatiijiga noocaas la wareegto laga soo bilaabo berberana hal la keeno shirkado waaweyn oo DP ka duwan ama China hadan ama Turkiga hadan ama Mareykan hadan ama Ingiriis hadan dhaqaale ka badan bixinayo horumarkana meesha ka soo gudoomiyaha ku soo gabagabeynaa ma jirtaa hab sahlan oo arintan aysan escalation ama tasciid inay kor u sii kacdo aysan ku gaari karin oo lagu soo afjari karo iyadoo dhan mushkiladan oo arrinkaasi annaga nagu xirna wuxuu ku xiran yahay walaalaheen imaaraadka uu ku xiran yahay ma garad waxa hadda Ethiopia loo soo hadal qaado aan waxaan u garanayn Ethiopia waxa weeye DP World baa share siisay idagis ya oo Somaliland la share ka goysay oo siisay ma garad ya oo shirkad baadan oo geeska Afrika maamulaysa ma garad ya ataas anagana ceeb bay noqon tahay Ethiopia ceeb ku tahay dalka ugu weyn ee geeska Afrika inay shirkadi share siiso aad iyo aad ma santahay dadka ayaga anaga soo xiriireen